dhiiqada ka dhigtay waa intaa wax weyn miyaad aragtay mafahmin halkay weliba rag waaweyn ay tilmaamad ku maasantahay la joogitaankaaga haddaad nagu cusubtana fadlan ugu soo biiro barnaamijka la qorxay soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan muuqaaladan idin hayna caawa kuwii usbuucan ugu dambeeyey social media sidaa laskula dhex marayay masaasi ugu shidnaa waa arrinta maxamed buskud iyo xaaskiisa arrinkaasi dib aan u dhiganaynaa barnaamijka qaybta dambe aynu kaga hadli doonaa balse marka hore legend sharma boy iyo maslax ma fahmin iyo sidii looga falceliyey heesaasi oo meeshii ay kaaga soo horbaxdaba ma fahmin iyadoo loo qaaday dhinacyo kala duwan haddii aad tahay xagga waxbarashada xagga siyaasadda channelka daawanaysa maxalka media ma fahmin mobilkanaad ku hadlaysaa makaagiiba ma fahmin iyadoo falcelin badan yeelatay run ahaantii heestaasi oo noqotay social media channelyo badan laga sameeyey hadday noqoto tiktok hadday noqoto xagga youtube-ka xagga instagram-ka dhinac walba horta heestaasi sidii looga falceliyey run ahaantii heesta inta keliya heestaasi dhiiqada ku noqotay waxa weeye waa inta wax weyn miyaad aragtay ma fahmin heesta inta keliya it's a point ku noqotay waa intaas laakiin inta kale cabistaa iga boy wala walowya ama nawaalo saaban warkaaga hayna laakiin hadda dhalinyarada mar haddaad cabistii ka wada saartay heesta inta keliya dhiiqada ka dhigtay waa intaa wax weyn miyaad aragtay ma fahmin halkay weliba rag waaweyn ay tilmaamayaan ay sidaa leeyihiin heesta intaas baa simbar ka dhigtay afartii subaxnimo xili la qaraacana ma ahayn qof waalida oo afartii subaxnimo la qaraacay waa khalad dhalinyarada iyagu soo raadiyey maxamed buskud xaaskiisa hooyadii ee la xidhiidhay ee doonaya inay wax weydiiyaan waxay raadinayaan xaq ka maqan nin ajnabiya oo kiristana mise waxay raadinayeen oyool iyo ceebaadhayeen ninkan maxamed runtu waxay tahay horta maxamed buskud isaga laftiisa hadda ka hor wuxuu muuqaal ka sameeyey wiilka kale isna youtuberka ahaa kamaal miyuha hadda ka hor isagana lalahaa xaas nin kala qabo ayaa isaguna guursaday ama naag la qabo ayuu isaguna guursaday maanta isagii bay haysataa maanta isagii bay taagantahay in xaaskiisi lagu dhago oo la yidhaahdo afartii subaxnimo qaraacay hooyadii afartii subaxnimo xili la qaraacana ma ahayn qof waalida oo afartii subaxnimo la qaraacay waa khalad hooyaday waxay tiri oran maayo waxaabay tiri ma oranayo waa hooyaday aniga i dhashay curadeedana waa nahay siduu ninkii u sheegay youtube laha marka ani laba shay oo kaliya kusoo galay meesha labada shay waxay weeyaan maxamed horta waa baray hooyaday afkeyga waxay ku tiri waa nii ducaynayaa wax dambe ma oranayo intaa dhaafsan hooyaday u dhaafsan ma oranayo talabaad bay noqotay ninkan ajahanibka anuu i qabay 12 sano ninkan anaga is qabnay 12 sano ayuu i qabay nin ajahaniba oo gaala weeyaan 2 sano diintii soo gal waa ku iri uuna diiday mar walba wiiga jejeesanay 2 sano imika go'aan baa qaatay inaa ka tago
hooyadii waa u sheegay oran maayo waxa wii guuri waxyaalaha wii oranay ma oranayo waa anigii hooyadii waa is ogaa iyo faamigayga waxa ku hooyo ninka marabo bacdeen ninkii anigoo go'aan ka qaatay idhi ninka marabo ka tagay ayaa maxamed bartay marka maxamed bartay maxamed waa qof wanaagsan xiriirkayagii uu sii dheeraaday waan isku tashanay inaan isguursano uu iweydiiyey maxamed wuxuu igu yiri ninkaasi muu kugu qabaa diin muslim mayba kuuri iguma qaba diin muslim reerkaaga ma ogyihiin aan ku dhaxtaa reerkaagu ma ogyihiin aba kuuri waa ogyihiin muslim miyuu kugu qabaa sidii ayuu maxamed igu ogolaaday aan isku ogolaanay marka isku ogolaanay sidii Sweden baa imid marka Sweden imid hooyada ayaa la hadashiyay maxamed waxay tiri waa isku kiin ducaynayaa markii dambe ma garanay wax dhaco bedelmay wax ma garanayo abtigay baa markaas soo hadlay wadna dagaalay markuu na dagaalay wuxuu yiri xamaraawi ma rabno hooyadii xataa way la hadashay way la hadashay bacdeen wuxuu yiri المهم halkaasi waa la sbartay familiyadii baa la sbaray labadii way heshiiyeen maxamed abtiga baa la hadashiyay maxamed abtiga u diriray markuu diriray wuxuu yiri xamaraawi anigu ila diriray isagu la diriray xamaraawi marabno anigi waa jeclahay maxamed waxa go'aansaday inaan noloshayda maxamed la samaysto bacdeen markii dhulkii sidaa iigu wala imaadeen ee igu yaraadeen ayaa adeeryaashay haddaba la hadlay marka adeeryaashay la hadlay ayaa adeerkii Fuaad ayuu marka u keenay waraaq alaab telefoonka waa u sheegnay eedadii waa ma soo hadlaya ma oranaya hadal badan waa aragteen hadalka waa aragteen waxaan isku lahayn aniga eedaday masaajid markaa markii masaajidka aan joognay waa ismehersanaaniya maxamed sidii baan isku mehersanay saliiba xalaal ku nahay adeeradii ayaana bixiyay sheekhiya nagu meheray masaajidka sidii ay aniga maxamed isku qabnaa oo xalaal isku qabnaa oo alla na og yahay waxay noqotay ninkan ajahanibka baryahan dambe waxaad moodaysaa social media inuu noqday maxkamadda dadka isqaba ay isku guursadaan ama basaba ay isku furaanba saddexdii cishana soo dhaafay waxaa baraa bulshada aad u haystay walaalkeen maxamed buskut iyo xaaskiisa oo run ahaantii la leeyahay nin hore oo faransiisa ama kristana baa qabay iyo nin muslima baa qabay haddaba mid aynu ka hadlaynaa horta taasiba halkaa aynoo taalla in gabadh muslimada inuu nin gaali qabo iyo inaanu qabin horta taas halkaa aynoo taallabeen midda meesha taallaa waxa weeye dhallinyarada iyagu soo raadiyey maxamed buskut xaaskiisa hooyadii ee la xidhiidhay ee doonaya inay wax weydiiyaan ma waxay raadinayaan xaq ka maqan nin ajnabiya oo kristana mise waxay raadinayeen oo yool iyo ceebbaadhayeen ninkan maxamed guud ahaan barnaamijka halkaas intaas ayaynu ku joojinaynaa haddii aad hore la joogtayna waa ku mahadsantahay la joogitaankaaga haddii aad nagu cusubtahayna fadlan barnaamijka noo qurxi isku soo noqod wanaagsan